isticmaalka baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo baraha kale dhammaantooda waxa ay saameyn aan wanaagsaneyn ku yeesheen warbaahinta oo hadda u muuqda in dadka ku taxanaa ay kasii guurayaan. Dad badan ayaa waqti ku bixiya baraha bulshada halka qaar aysan ka bixin 24 saac oo hadba wax ku qora ama xog ka raadiya. dhibaatada ugu weyn ay qabaan wariyaasha ka howlgala xarumaha warbaahinta ayay ku sheegeen in ay tahay marka ay goob ama xarun war ay u aadaan oo uu kaga horeeyo baraha bulshada, taasna ay sababayso inuu warku macno yeelan aysan siinayn baahintiisa. Najiib Garaad Casabow waa mid ka mid ah dhalinyarada aadka u isticmaala baraha bulshada waqtina ku bixiya. Waxaan wax ka weydiiyey ku kalsoonaanta baraha bulshada marka loo eego dhanka warbaahinta. aaladaha bulshada qaasatan Facebook oo kaleeto waa aaladaha inta badan laga helo wararka aan xaqiiqad ahayn oo tooska aan ahayn. marka loo eego TV-da oo kaleeto waa xaqiiqda oo saxan ay soo gudbiyaan, laakiin se aaladaha bulshada sida Facebook oo kale dadka wixii dhacsan markaas oo kale hore ka helay runi been waxay yihiin cadaan ma lahan meel aan raacdana. Ka hor isticmaalka baraha bulshada dad ayaa ku taxanaa dhageysiga iyo daawashada warbaahinta oo ah isha ugu weyn ee laga helo wararka, waxyaabaha ka jira magaalada iyo dunida inteeda kale oo warbaahintu ay baahiso. dhageysiga idaacad iyo daawashada TV ayaa ka kalsooni badan marka loo eego wararka baraha bulshada lagu qoro. in badan dadku hadda waxay aad isu bedeleen kuwa wax ku qora baraha bulshada iyagoo aan wariye ahayn, balse saameyn ayay ku yeelatay marka loo eego dhinaca warbaahinta oo qaarkood laga yaabo adiga oo war u aaday goob inuu kaaga horeeyo baraha bulshada. balse su-aashu waxay tahay sidee loogu kalsoonaan karaa warka lagu baahiyo baraha bulshada marka loo eego warbaahinta. Nizaam Suleymaan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada wax ka barata mid ka mid ah jaamacadaha dalka ku yaala. waxa uu ka waramayaa saameynta baraha bulshada ay ku yeesheen warbaahinta. Socialka hadii la dhaho sanadahan dambe labadan sano waxa zaid dadka u isticmaalaan Facebook ama YouTube oo kale. Meediyahana waagi hore meediyaha iyo YouTube socialkana waxa dadku kalsoonayeen idaacadaha. haddana idaacadaha markii warbixin oo kale warbixin degdeg ah markay soo baxaan oo kale ama qarxyo ama waxyaalo oo kale dhacaan waxa dadka badana ay si degdeg ah u aadaan Facebook ama aaladahaas oo kale way saacado kadib waxa laga yaabaa idaacadda inay sheegto waxa oo dadka saameeyay ama CV-ga. aniga TV waqti oo kaliya waxa ku bixiyaa marka ay ciyaaraha ay jiraan oo kaliya saacada ciyaaraha ay jiraan daawado oo kaliya laga yaabaa. warbixin oo kale weligeed warbixin oo kale inaad ka dhageyso ma laga yaabo ma isku taxlujinba. warbixin waxa ka helay aaladahaas oo kale ka helay kalsooni ahaan hadii la dhaho kalsooni idaacadda ama meediyaha waxa laga yaabaa warbixinta sida saxan inay u soo sheegin oo warka inta badan ay ka tagaan. socialka ama Facebook oo kale qof waxa laga yaabaa qof walba ra'yigiisu ka dhiibana Soomaan laguma qabsanayo inuu waxyaalo ka dheeraada wixii idaacadda ay sheegtay inay sheegaan. aaladaha baraha bulshada ay saameeyeen dadkuna aadka u isticmaalaan waxaa ka mid ah Facebook iyo Twitter oo labaduba qayb ka ah kuwa wararka qaar ee aan sal iyo raad toona lahayn lagu baahiyo, midaasi oo in badan dadka wata magaca wariyaal ay ku baahiyaan iyadoo saameynteeda ay taabanayso wariyaasha oo qudhooda wararka ku qora baraha ay isticmaalaan. Ibraahim Sheekh Xuseen Sheekeeye waa mid ka mid ah wardoonayaasha Bulsho TV. waxa uu sharaxayaa caqabadaha ka haysta warbaahinta dhanka baraha bulshada. caqabadaha xagga baraha bulshada ay waliba ku qabaan warbaahintu waxa qayb ka ah waxa laga yaabaa in maanta war aad aado ama dhacday inaad soo duubto juhdi iyo dadaal fara badan aad ku bixiso. dhacdadii markii aad soo duubtay inay imaado aad editing gareyso aad sameyso si bulshada aad ugu bandhigto. dhacdadii markii aad habayso aad bandhig isdhehayso kale ama aad dirto ama warkii in la soo daayo aad qorsheynayso warkii waba ka warhayaan dadka. waa sidee sababtu waxay tahay warkii mar hore baraha bulshada galay oo waxa laga yaabaa intii ay sheegi lahayd iyo in ka sii dheer xogtaadaba in la helay. marka warkaaga waa ka soo horeeyay waa maqli jirtaa malena ya marka sida awadeed warkii adiga aad tabin lahayd hadiiba baraha bulshada uu yaal oo dadkii marka ka soo qaba TV-ga warka uu soo galo la yiraahdo maanta hebel meel hebel wax baa ka dhacay dadkii iga sii hor dhacay sidaas macna maanta wax yeelay ka soo gaadhay sidaas wax u dhacay laana waxay ka heleen wixii warara baraha bulshada marka caqabad ay noqotay waxay noqotay wixii warara hor dhacay waa laga haystaa. yinkii ugu dambeeyay aan iraahdo
warbaahintii waxay isku bedeshay haddii aad aragtay lafteedu dhinaca arrimaha bulshada dhacdaa dhacaysa iyadoo muuqaal sidiisa waxay ku soo bandhigay baraha bulshada after that wuxuu sameynayaa qofkii markaasi aanan wariyaha ahayn isagoo jecel saxaafadii muuqaalkii uu dejisanayaa isagana wariyihii iska dhigaya wixii soo qoraya marka taas weeye dhibaatada ugu weyn ee marka meesha ka jirto nin kastiina wariye iska dhigay dhammaan marka wariyaha la wadayaa wixii Soomaaliya jooga ilaa caalamka oo dhan wariyaha la wada noqday hadda shalay ugu dambeysay dhacdo oo wallahi waxaan arkay isheedii ku arkay dhacda aniga markaasi aan dhigay markaan dhigay oo waliba qoraalkii inta waday waxaan arkay qof aan wariye ahayn oo aan garanayo laakiin oo dhacday sideedii iyo sida wax u dhacay meesha ka dhacay iyo dhacdadii macnaha gabadhii markaa la xaday sideedu u soo qoray meel ka keenay meel kale garawaa anigi wariyaha xataa sawir aanan haysan oo isaga haystay marka taas marka aad fikirto waxa isleedahay dadkii caadiga xitaa wariye noqdeen kaliya kuma koobna baraha bulshada in wararka lagu baahiyo balse waxaa jira in dowladaha qaar ay dunida u adeegsadaan xil magacaabis ee ka qaadista oo tusaale kugu filan dowladeena Cabdiqani Cabdullaahi Ibrahim tafaftiraha idaacadda kulmiye ayaan weydiiyay kalsooni intee leeg ayaa lagu qabi karaa wararka baraha bulshada lagu baahiyo marka laga hadlayo warbaahinta Soomaalida iyo si guud warbaahinta caalamka marka la yiraahdaba waxa saameyn ku yeeshay baraha bulshada ay isticmaasho sida Facebook oo kale saameyntu dhinacyo badan tahay waxa qaybaha ugu badan kamid ah in shaqadii warbaahinta in badan oo kamid ah mararka qaar la xagal daaciyay ama hoos u dhac ku iman karto sababtoo ah wariyaha waxa uu ku niyadsan yahay marka warka isaga uu yahay qofka ugu horeeyay ee warka gaarsiiyay bulshada saacadee marka warkii isaga uu diyaarinayay bulshadii ay hadal hayso already ay falanqaynayso waa wax kale oo saameyn ku yeelanaya shaqadii sidaas oo ay tahay wali waxa jirta waxay tahay hal arrin oo warbaahinta aan looga maarmin inteena la socota baraha bulshada saameyn ay ku yeelatay wararkii haddana sidaas oo ay tahay dadka Facebook ku arka wararka badi kuma kalsoona ilaa ay ka arkaan page-ka warbaahin sax ah oo xarun leh oo lagu kalsoon yahay marka saameyntu way badan tahay waxyaabo kale jira waxa kamid ah warar been abuuraha jira warbaahinta qaar waxa laga yaabaa in wararka isla dhaxmarayo Facebook ay qaataan sidaasna warka uu ku noqdo mid aan sal lahayn oo xaqiiqada ka fog habka wararka loo dhigo mararka qaar waxaad moodaa in Facebook uu yahay mid ka go'aamiya marka saameyn badan way ku yeelatay mar kale Cabdiqani ayaa ka waramaya haddii ay jiraan dad aanan wariyaal ahayn ee wax ku qora baraha bulshada iyo caqabadaha ka haysta warbaahinta dhacdooyinkan haya sanadkan gudihiisa ah ilaa ku saytan waxa kamid ah wasiir xil haya oo wasiir ah waliba ayaa bartiisa Facebook wuxuu ka soo qorayaa war aan wasaaraddiisa qosaynin xitaa dawladda qosaynin aan lahayd tusaale ahaan laga yaabo in mas'uul ka safar eelboorka ama uu soo dhigo warkii marka la tix raaco mararka qaar ay noqdo war aan sal lahayn waana page-ka rasmiga ah ee wasiirka marka wararka la isla dhax maro ama Facebook iyo baraha kale bulshada aad loogu kalsoonaan karo waxaana sababta ay tahay qof kasta ayaa noqday wariye isticmaalka baraha bulshada sida Facebook, Twitter, Instagram iyo aaladaha kale waxay saameyn aan wanaagsan ku yeesheen warbaahinta iyadoo wararka qaar ee aanan sal iraad lahayn lagu baahiyo baraha bulshada oo saameyn wanaagsan ku yeesha warbaahinta balse ma ahan mid ku kooban hal mar oo waa dhowr jeer waxyaabaha baraha bulshada lagu baahiyo oo maalin la ka noqotay sida wararka caadiga lagu baahiyo warbaahinta Iskriin Maxamed Wardere, Isma TV, Muqdisho.